الأنبياء والمرسلين halka waxaan ka dirayaa maanta baaq iyo hambaliyo Somaliland oo dhan aan u dirayo dhammaan dadka muslimiinta ah ee af Soomaaliga ku hadla ayaan halkan maanta waxaan uga dirayaa baaqaas oo ah inay fursadda iyo kheyraadka ku jira bisha Ramadaan ka faa'iideystaan gaar ahaan baaq waxaan u dirayaa dadka balwadaha leh ee caadaystay qaadka buuriga shiishada ama badeecada waxa loo yaqaano iyo wixii ka sii sareeya ee Ilaahay reebay kuwaas oo aan ugu yeerayo inay fursadda bisha Ramadaan ku jirta ka faa'iideystaan sababta ay uga faa'iideysanayaan ay tahay marka ay maalintii oo dhan sooman yihiin balwadii waxay isku soo hadheen waa habeenkii oo qayb ay ahayd in la seexdo sida awgeed waxaan leeyahay dhammaan dadweynaha muslimiinta ah ee afka Soomaaliga ku hadla meel kasto ay joogaan dunida daafaheeda inay bisha Ramadaan marka ay soomaan xilliga afraad ay tahay qof walba afradiisu u qaato oo ay ku dhaxafuraan guryaha Ilaahay ee masaajidada ah kadib markay halka ku afuraan inaanay dibadda u bixin ay halkooda xajistaan masaajidkooda ay i'tikaafaan balansadaan cashada iyagoo halkoodii iska jooga taraawiixda ay tukadaan guryaha Ilaahay ku jiro masaajidada markay taraawiixda tukadaan cashada loogu keenan ay masaajidada seexdaan muddo 7 casho hadduu qofku sidaa yeelo ama 7 habeen waxa laga yaabaa habeenka 8aad inaanu u baahan balwadihii caadada xun ee uu lahaa sida awgeed waxaan leeyahay walaalkayga muslimka meel kasto aad joogto bisha Ramadaan markaad maalintii oo dhan soonto diyaarso afuradaada iyo cashadaada cid ku balanso kugu keento masaajidka gudihiisa i'tikaaf afu taraawiixda tuko dibadda ha u bixin maxaa yeelay dibadda waxa kugu sugaya balwadii iyo saaxiibkii xumaa ee kugu duufsanayay inaad qaadato qaadka ama buuriga iyo wixii la mid ah sida awgeed waxaan leeyahay bisha fursadda barakaysan ku jirta dhammaan aynu ka faa'iideysano gaar ahaan dadka mas'uulka ah ee xilka haya si gaar ah waxaan ugu dirayaa baaqan leeyahay bisha Ramadaan fursad dahabi ah baa ku jirta oo balwadaha iyo dabeecadaha xun la iskaga dayn karo dhammaan aynu ka faa'iideysano naftayda iyo idinkaba waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu bisha Ramadaan na gaarsiiyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo kuwa sooma oo Ilaahay Ramadaanta ka aqbalo oo dambi dhaaf iyo maghfira iyo naxariis iyo jannad ku helana Ilaahay naga dhigo kuwa balwadaha iyo waxyaalaha xun kaga tagana Ilaahay naga dhigo kuwa khayraadka iyo fadliga isugu yeelan Ilaahay naga dhigo sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ee gacanta wax ku haya bisha Ramadaan inay ogaadaan masaakiinta dariskooda dhammaan ay gacan qabtaan kii dhar bixin kara kii cunto bixin kara kii afuro bixin kara nin waliba wuxuu hayo inuu gudbiyo sidoo kale culimadu cilmiga waa inay sidii hore ka badan u gudbisaa tijaartu maalkeeda waa inay sidii ka badan u gudbisaa suugaanyahanadu waa inay khayraadka bisha Ramadaan ku soo gudbiyaan waxaan kaloo ka digayaa waxaynu caadeysanay bisha Ramadaan inaynu iyagana qabano cayaarahaas oo la leeyahay koobka bisha Ramadaan la dhigayo xalay baan TV-ga ka daawanay taana waxaan leeyahay aan ka waantowno maxaa yeelay cayaarta waxa la ciyaaray gelin dambe qofka cayaarayana tabar badan buu u baahan yahay si aan looga badin shaydaanku qofka wuxuu ku duufsan karaa inaanu soominba sida awgeed waxaan leeyahay bisha Ramadaan markay dhamaato koobabka iyo cayaaraha iyo waxyaalaha dadka qaar jecel yihiin ha lagu beegoyo bisha barakaysan dhexdeeda la gelin tashuush iyo waxyaalo qofka ku keeni kara inaanu soomin waxaan leeyahay bisha Ramadaan wax allaala iyo wixii jira ee khilaaf siyaasi ah iyo wixii kale ee jira ee khilaaf aan siyaasi ahayn ba dhulka hala dhigo Ilaahay aynu isu dhiibno gacmaha aynu kor wada taagno Ilaahay aynu ka codsanno inuu sare inoo qaada inuu jannada ina geeya inuu ictiraafa inuu qulubteena isu soo jeediya sidoo kale dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay war wixii lagu balamo muslimiinta shuruudoodu waa wixii lagu balamay inay oofiyaan Ilaahay darti muslimiintooy wixii aad ku balanteen oofiya labada siyaasiga waxa ku balanteen oofiya labada xoolaha isu dhibto waxa ku balanteen oofiya labada isu shaqeynaya waxa ku balanteen oofiya ee aan shariicada islaamka ka hor imanayn balan allaaliya balantii shariicada islaamka ka hor imanaysa waxba kama jiraan laakiin tii waafaqsan maalinta xisaabtana waa la isweydiinaya ifkana waxa xun qofka balantu galo ka baxa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh